bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kulanti wacan dhegeystayaal meel kasto aad naga maqlaysaan waa Arbaco 4 Juun 2025 waxaan ahay Maxamed Cumar Cali ustaad Arki TV-ga Al-Xigma barnaamijkiisa isha ka farta qodobada aan idinkugu haynana waxaa kamid ah maqaayad ku taal xaafadda Buuluxuwi oo ay weerar ku qaadeen dabley Huwaysa qarax ka dhacay isgoyska Tarbuunka ee magaalada Muqdisho beelaha dhilqo iyo dhinmaayo oo isugu soo baxay magaalada Muqdisho dameer awasho balaaran ka muujiyay labadaagista mordiga madow ee dadka la xukuumar qaantay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho qiimaha hilibka waryaaga oo sare u kacay taasi ay dirayaan reer wariiri Xasan Gila baafin tahniyad aroos ah oo ay dirayaan reer Leeba Qatar iyo ogeysiisyada oo aan halka ka marnay mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan maqaayad ku taal xaafadda Buuluxuwi oo ay weerar ku qaadeen dabley Huwaysa warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaray Waliid Umar Xirsi maqaayad ku taal xaafadda Buuluxuwi waxa soo weeray dabley Huwaysa Afrikada kadib markii ay saameeyeen dad maqaayad isku dhacay sambuus dhaacay wareesto waxaan ii sheegay falkaas ay ka dambeeyaan maleeshiya ka fiicalool Waliid Umar Xirsi Al-Xigma Muqdisho mahadsanid Waliid tahniyad aroos ay dirayaan reer Leeba Qatar warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaraa Salmo Saciid Maxamed نيت أراس ميشار ليوا قطار بورس ليوا قطار كشبيت ليوا قطار سفاحات ليوا قطار ليوا قطار إيه دمار ليوا قطار waxay taaniyad aroos oo dirayaan arooskii aroosada faraska iyo geeyada farta iyo faraanta iyo dhalada iyo geeseedka tinta iyo taakada waa furo leeba qataar iyo quful santuuq xasan waa qalgalkooda ka dhacay xaafadda Saktuuro waxaan leenahay iskuma waartiin waxay idin ka haran arkaynaa Salmo Saciid Maxamed Al-Xigma Muqdisho mahadsanid Salma markana beelaha dhilqo iyo dhinmaayo oo isugu soo baxay magaalada Muqdisho warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaraa Abdiqafaar Cusmaan Maxamed kuwaaweynay Muqdisho waxaa iskugu soo baxay beelaha dhilqo iyo dhinmaayo ayagoo ka canducoonaya warshadaha soo saarta dibaad banaanbaxaasi waxaa ka hadlay Anyax Geediraaga oo hogaamiya cayaanka isagoo doonaya dadweynaha ka codsaday in la yareeyo sunta bibaabta si xulnimo buuxda ay ugu noolaadaan dhilqo iyo dhinmaayada Abdiqafaar Cusmaan Maxamed Al-Xigma Muqdisho mahadsanid Abdiqafaar qarax ka dhacay Tarbuunka waxa ku geeriyooday barbara gaargacanaya halka Buuluxuwi waajiistaan oo ku geeriyooday xogaha xaqaas ka soo baxday ayaa la sheegay inuu qoobto qarax ka dhacay uu qaraxaas uu ahaa bamba qaraxday Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi Al-Xigma TV Muqdisho markale dabeero cabasho balaaran ka muujiyay labadaagista mordiga madow ee dadka warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaraa Ikhlaas Yuusuf Xuseen dameeraha ayaa cabasho balaaran ka muujiyay labadaaga mordiga madow ee dadka Jackir Bisnaq oo afayeenka dameeraha ayaa ku nuxnuxsaday in ay weerari doonaan dalagyo habeen oo ku yaala wadanka beeraha haddii dadku aanan ka waatowin cunista mordiga madow dadweynuhu waxa ay heli karaan cunooyin kale balse aanan kuma heli karno cunooyin kale waxaan mordiga hayn sidaas waxa ku nuxnuxsaday Jackir Bisnaq oo afayeenka dameeraha ah Ikhlaas Yuusuf Xuseen Muqdisho Soomaaliya mahadsanid Ikhlaas weysiis markaas faahfaahsan waxa la diyaaraa Farxiyo Muuse Buukar ogeysiis rugta isku daweynta feerka haraatida iyo jilibka ee hagardaamo waxay ka daweynaysaa cudurro badan cudurradaasi waxaa kamid ah cudurrada isyeelyeelka oo laga daweynayo 18 feer 4 jilib iyo 9 xusul hadaba isyeelyeelkii ku hayay sidaas ayuu kaaga baxayaa Farxiyo Muuse Buukar Al-Xigma mahadsanid Farxiyo la xukuumar qaantay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaraa Bakar Cabdirasaaq Diiriye ayaa ku marqaantay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho laxaas ayaa la arkay iyadoo lagu isdul saaratay isla markaana uu ag yaalo tarmuus dheer oo shaax ah iyo ugu yaraan 14 bakeeri laxaas ayaa wax ka weydiinay habka ama qaabka ay u marqaameyso waxaan ugu horeen weydiinay goorta ay bilowday inay marqaanto Bakar Cabdirasaaq Diiriye
الحكمة مقدشو. mahadsanid baafin warkaasoo faahfaahsanna waxaa la diyaaraa maxamed muxudiin salaad baafin faa ismaaciil cali faybood cub waxay baafinaysaa haaskar oo kaga lumay isgooska 3 kunleed ee magaalada Kaawgoday haddaba astaamaha lagu garan karo haaska sigaarka waxaa kamid ah dhexda ayuu u dhuuban yahay halka afka horan uu ka bilaaran yahay haddaba cid calaale cidii aragtay haaska sigaarka waa xoog iyo muruq looga codsanaya inay ku soo hajaan xafiiska wararka isha ka farta maxamed muxudiin salaad al-xigma muqdisho mahadsanid maxamed taasi ay dirayaan reer wariiri xasan jila warkaasina waxaa la diyaaraa mustaqiim wariiri jila xasan bulaa aweesulgaale geedid dawaqalooc farbadne yuusuf injir qanjeel qaasim dhammaan dadkaasi waxay tacsi tiiraanyada u dirayeen qoysaskii eeladii qaraabadii iyo asxaabtii oo afka uga tagay rabbi samir iyo iimaan ka siiya marxuum jijiil oo ku geeriyooday xaafadda saxaarad mustaqiim xikma mahadsanid mustaqiim